munaasabadan sida heerka sare ah loo agaasimay oo kulansatay dhagax dhigga iyo daafurka mashruucan qiimaha ballaaran noogu fadhiya Marino Beach State oo runtii aan dhihi karo waa mashruuc wax ku ool ah waa mashruuc loo baahnaa waa mashruuc waqti munaasaba oo aad loogu baahan yahay runtii la dhagax dhigay ama ku soo aaday marka runtii mashruucaani ahmiyad ballaaran ayuu dalkeena iyo dadkeena u leeyahay waxa weeye marka maalgashiga ganacsatada Soomaaliyeed ay maalgeliyeen gaar ahaan shirkadda Dahabshiil iyo rugta ganacsiga oo ay barnaamijkan hogaaminayo runtii waa barnaamij aan aad u soo dhaweynayno waa barnaamij aan isleenahay kaliya wax ka tari ma aha hoyga laga helayo kaliya ma aha wuxuu magaaladan bilicdeedii ayuu soo kordhinaa waxa weeye wadanka bilicdiisii ayuu kor u qaadayaa wuxuu kor u qaadayaa magaca Soomaaliyeed waxa weeye waxa halkan wax ku baranayo arday Soomaaliyeed oo maanta tacliin aan haysan oo runtii waxa halkan laga heli doonaa ruga ganacsi waxa weeye goobo cibaadeysi intaasoo la koobay oo la isku keenay wax weyn ayay Soomaaliya ka bedeli doontaa waxa wax weyn ka bedeli doonaa horumarka magaaladaanu ay gaarto wuxuu noqonayaa horumar Soomaaliya ay gaartay dhamaanteed oo Soomaaliya ay ku tallaabsato marka ka wasaaradahan runtii aad ayaan u soo dhaweynaynaa maalgashiguna wasaaradda waxyaabaha ugu weyn waxa weeye inay ganacsiga fuudayso ganacsatada la shaqayso dhiirigeliso maalgashiga dhiirigeliso wax soo saarka laakiin dal sida hadda hore loo sheegay dadkiisa ayaa dhista waxa weeye waxa aad dal kale ku dhistaa dad kale ayuu harayaa laakiin waxa dalkaaga gelisaa dadkaaga ayuu harayaa marka aayadda quraanka waxay leedahay waman axyaaha fa kaannama axya naasu jamiican qofkii dad nooleeya marka dhulkan qofkii nooleeya wuxuu nolol badan ayuu nooleeyay fa kaannama axya naasu jamiican tan kale qof walba oo wadankeena joogto ama wadankeena xil ayaa saaran kullukum mas'uulun wa kullukum mas'uulun can ra'yatiha waxa weeye Dahabshiil kaalinteedii way gudatay welina waa laga rabaa rugta ganacsiga sidoo kale ganacsatada Soomaaliyeed sidoo kale waxaan rajaynaynaa biidhnillaahi alkariim in barnaamijkan sida gudoomiyuhu uu sheegay in dhagax dhigiisii waan aragnay daahfurkiisii waan aragnay in waqtiga ugu dhaqsiyaha badan halka looga bilaabo si riyadii laga lahaa iyo muxuu ahaa wixii laga sugayay loo gaaro runtii ugu dambeyn ka wasaaradahan waxa weeye wixii sharciya iyo wixii ganacsiga lagu fuudeynayo oo howla waxa weeye waxaan mudnaanta siinaynaa mudane gudoomiye ganacsatada wadaniga waxa weeye ganacsatada wadaniga waa kuwa laf dhabarka u ah dalka waxa weeye waa kuwa dalkan leh waxa weeye mudnaanta koowaad ayaga noo ah wixii ay ganacsatada wadaniga ay dalka gudihiisa ay uga baahdaan in lala kaalmeeyana waxaan diyaar u nahay kuwa ajnabiga ah inay ayaga la sameeyaan joint venture ama ganacsigooda ay kula shirkoobaan oo ay hoggaan ka yeeshaan ganacsatada wadaniga marka ka wasaarad ahaan waan garab taaganahay gacan ayaan ku siinaynaa howlihiina hadda xafiisaduna way idin furan yihiin waqti walba waxa weeye waxaan diyaar u nahay wax walba oo lagu horumarinayo dalka Soomaaliya gaar ahaan dhinaca ganacsiga